السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. inkasta oo toontu inay dawo cajiiba tahay aanu shaki ku jirin haddana waxaa jira dad lagula taliya inaanay toonta sideeda u isticmaalin iyagoo aan la tashan dhakhtarkooda. Dadkaasoo ay ka mid yihiin dadka ka cabanaya xanuunada beerka ayaa lagula taliyaa inaanay toonta sideeda u isticmaalin iyagoo aan la tashan dhakhtarkooda. Dadka uu haya xanuunka shubanku ayaa iyagana lagula taliyaa inaanay toonta sideeda u isticmaalin. Dadka ka cabanaya xanuunada indhaha ayaa iyaguna ka mid ah dadka lagula taliyay inay taxadir ka yeeshaan isticmaalka toonta. Dumarka uurka leh iyo kuwa ilmaha nuujinaya, inkastoo dumarka uurka leh iyo kuwa ilmaha nuujinaya hadday toonta u isticmaalaan inay cuntooyinka ku darsadaan aanay waxba yeelahaynin, waxa iyagana lagula taliyaa inaanay toonta dawo ahaan u isticmaalin ama xaddi badan aanay ka qaadan. Iyadoo toontu ay caan ku tahay inay dhiigga hoos u dhigto, ayaa lagula taliyaa dadka ka cabanaya inuu dhiiggoodu dhacsan yahay inaanay toonta sideeda u isticmaalin.